maalinta shanaad howlgalka ciise masiix jirribaaddii ibliiska kadib sayid ciise wuxuu ku soo laabtay tuuladii uu ku barbaaray ee nasaret iska waraan waa nabad maalintii nasashada reer banu israa'iil wuxuu aaday sidii cadadu ahayd barkulaanka reer banu israa'iil looguna yeeray inuu akhriyo qayb ka mid ah rasuul ishacya ruuxa rabbiga ayaa i kaalmeynaya wuxuu ii doortay inaan u naadiyo fariinta wanaagsan masaakiinta wuxuu ii soo diray inaan naadiyo kuwa xihan siina daayo indhoolayaasha aragooda u soo celiyo inaan xoreeyo kuwa la cadaadinayo oo ugu naadiyo wakhtigii rabbigu badbaadin lahaa dadkiisa si wanaagsan ayuu u akhriyey qoraalka quduska ah maanta way rumowday sidaad u maqasheen ee loo akhriyey saadaashana miyay rumowday laakiin duwinaha masiixa oo keliya sidaan ku ogaan karnaa in qoraalkanu fulay anaad ii maamaahi doontaan dabiibow adiguba isdabiib iguna dhihi doontaa hadda mucjiso ku samee tuulada sidii tii magaalada kafarnawm dhegaysta weligeed nebi tuuladiisa lagama soo dhowaynin erayadan sayid ciise isku caddeeyey inuu yahay masiixa oo ilaah u madax duubay una soo diray inuu dadkiisa badbaadiyo laakiinse reer banu israa'iil qaarkood way diideen inuu duubanaha masiixa yahay intay qabteen ayay jiideen rabeena inay qar ka tuuraan oy dilaan oo way u noqon weysay laakiin dhexdoodu maray wuuna ka tagay kow aniga ma ku dhiiranahay inaan ka hadlo runta labo maxaa tanaasulaad ah oo u sameeya u yeeridayda iyo howlgalkayga saddex sideen u jawaabaa kolkuu ciise masiix ila hadlo